بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا ليال وبرنامج كني لما قاعد بحي هول معلومات كني محمد صلى الله عليه وسلم وكلنكي أما فردقي أفريا طبنات برنامج كاس وحنكسو هاللي إني نبي عليه الصلاة والسلام قيلولة شديسة يهرددي وظهركي أما برقدي وسيحنجري. waxaan maanta ka warramaynaa Qubaa iyo aaditaankii uu aadi jiray iyo caadadiisu siday ahayd. Sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaan jiray barqanka maalin kastoo sabti ah waqti barqankii ah ayuu wuxuu aadi jiray masjidka masjid Qubaa isagoo ama gaadiid saaran oo dameer ama baqlad ama faras iyo wixii la mid ah saaran ama isagoo lugeynaya ayuu aadi jiray. masaajidkaasuna ku soo tukan jiray. waxaana dhici jirtay mararka qaarkood ahlu Qubaa inay u yimaadaan. Qubaana waxaa deganaa qabiiladii Banu Awf ابن الحارث لأورنجري بعد جنان جرين إني سلامان نبي قلت كنا صلى الله عليه وسلم فيشير إليهم نبي جنا أو إشارة جري. ولهذا قفك إسقوا تكنا يهدي قف وسلامه وهو إشارة ذا سي إنه بحيو صاصو كلا إنه يرهدو النبي صلى الله عليه وسلم ويسلامين إسقوا تكنا يكذبنا وقتل مامي قعنته وهو وتنبيه مركا قبته oo salaada uu ku tukado. waxaa dhici jirtay mararka qaarkood hurdadiisa qayluulashada inuu seexdo guriga ummi Haram binti Milhan. ummi Haram waxay la dhalatay Sulaymti aan soo marnay oo cadarkii nabiga ka dhigatay dhididkiisi ka dhigatay oo gurigeedii uu qayluulashanayay maxaarimtii nabigayna ka mid ahaayeen labadaba ummi Haram binti Milhan iyo Sulaym. ummi Haram tan qubada ganeed وزوجتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمع. مالي ما كميدة أي أصول قليل راشين بيسي النبي صلى الله عليه وسلم كدبنا تنتا أي أوها جيسي نبي قواصي يحظي صلوات ربي وسلامه عليه. هردada markuu ka kacay isagoo dhoon la cadeynaya qoslaya ay hurdadii ka toosay. waxay ku tiri yaa rasuul Allah sallallahu alayhi wasallam maxaa ka qosl siiyay. wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam dad ummadayda kamida ayaa iyagoo duulaya waxaa lii bandhigay oo aan arkay iyagoo duulaya oo dagaal jihaada ku jira waliba badda ku dul safraya yarkabuuna thabaja hada albahr badda dusheeda iyagoo ku dul safraya waliba mulukan cala alasira iyagoo boqorro ah waa maxay boqorradu waxa lagu yaqaanaa sariiraha iyo inay dangigsadaan iyo kuraas faakhira iyo sidaas si lamida iyaga oo yacni madax ah oo aanan ihaanaysnayn oo adduunka maamulayo sharaf leh ummadayda ummad ka mid oo baddaasi ku duulaya ayaa baalii tusiyey. ummu Haram binti Milhan waxay tiri yaa rasuul Allah sallallahu alayhi wasallam ilaahay ii bari inuu qoladaas igu daro. nabi sallallahu alayhi wasallam ilaahay buu u baryay kadibna dhulka ayuu madaxa dhigtay haddana waa seexday haddana wuu soo kacay isagoo dhoola cadeynaya sidii si lamid ay ku tiri yaa rasuul sallallahu alayhi wasallam maxaa ka qosol siiyay. wuxuu ku yiri nabi sallallahu alayhi wasallam ummadayda ummad kamida ayaa lii bandhigay iyagoo duulimaad ku jira dagaal jihaad ah waliba baddaasi ku dulduulaya sidii hore si lamid ah. markaasay waxay tiri ummu Haram binti Milhan yaa rasuul Allah sallallahu alayhi wasallam ilaahay ii bari inuu qolada igu daro. wuxuu ku yiri anta min alawwaliin qolada u horeeyad ka mid tahay dadkaasi kuwa ugu horeeya safka horeed ku jirta. farakibat albahra fi zamani Muawiyah ibn Abi Sufyan. zamankii Muawiyah radiyallahu anhu khilaafadiisii ayay duulaankaasi ka qayb gashay badda lagu duulayay. markaas waa maxay waxay ka dhacday daabadii ay saarneyd gaadiidka ay saarneyd ama dameerkii ama baqladii ama neefkii geela ay saarneyd ama faraskii bay ka dhacday kadibna halkaasay ku dhimatay ama ku shahiiday radiyallahu anha wa ardaaha ummi Haram binti Milhan. ولهذا ولا ليال waxaad dareemi kartaa العجيب ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم in ummadiisu baddaasi ay kori doonaan iyagoo waliba madaxa oo adduunka u talin doono duulaamadaasna ay geli doonaan. waa maxay cajaa'ib badan. carabta waliba iyagoo aanan aqoonin duulaamada badda dhexdeeda lagu dagaalada lagu galay imaysan aqoonin
idan waxay ahayd waa wax runtii cajiiba waaye oo waxaa iyadana cajiib mudan inay yihiin muluk aysan ahayn dad dulaysan diinkani inuu cizo iyo sharaf uu gaari doono waxaa sidoo kale la yaab leh ummi xaraam binti milxaan sida ay u danaynaysay inay sharafkaasi iyo qiimigaasi ay wax ku yeelato una weydiisatay nabiga calayhi salaatu wasalaam in uu u duceeyo si ay uga mid noqoto wahakada walaalayaal nabiga sal slama xaalkiisu saasuu ahaan jiray barqadii iyo maalinkii hore gelinka dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam qoraxdu markay zuusho oo duhurka uu soo galo oo hurdadiisa iyo qayluulashadiisa uu ka kaco salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxaa dhici jirtay salaaddii duhur in loo addimo marka la addimana inuu aadaanka uu ajiibo sidii aan soo marnayba inuu weysaysto nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa wuxuu ku tukan jiray 4 ragcadood oo sunno ah oo salaada duhur ka horeyso wuxuuna oran jiray innahaa saacatun tuftaxu fiiha abwaabu asamaa waa waqti samada irdaheeda la ballaqoo la furo waxaanan jeclahay camalkayga in uu koro oo samada irdahaas la ballaqayo camal wanaagsan inuu samada ii aado ayaan jeclahay waqtiga wahakada walaalayaal 4 ragcadood ee ka horeysa salaada duhur in laisku beego si camal wanaagsan uu samada inoogu galo aad bay u fiicnaan lahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ayuu ku sugi jiray aqinka waxaana laga yaabi jiray mararka qaarkood inay xasan iyo xuseen iyo gabadhiisa faatima ay dhashay ama umaama binti alcaas binti abilcaas oo zaynaba ay dhashay inuu la joogo oo guriga ay ku ciyaarsiiyo oo ay agtiisa ku cayaaraan waa ilmihii awowga uu ahaa bilaal markii uu salaada aqimo uu u sheegay in salaaddii waqtigeedii la gaaray salaada ayuu aadi jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inuu xaasaskiisa midood uu sii dhunkado isagoo masaajidka usii socda marka uu masaajidka galo saxaabadu ridwaanullaahi calayhim mararka qaarkood waxay arki jireen isagoo sita xasan ama xusein ama gabadhii uu awowga u ahaa oo ahayd umaama bint abilcaas zaynaba ay dhashay radia allaahu canhum jamiican mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inuu ilmaha agtiisa dhigo uu ku gurab tukado mararka qaarkoodna inuu sitaba uu xambaarsan yahay walihaada xarakaadkaas yaryarka ahi salaada waxba u dhimi mayso sida adiladaasba laga qaadanayo maalimaha ka mid ah xasan ama xuseen midkood isagoo sita ayuu soo baxay salaaddii ayuu galo allahu akbar takbiiratu lixraamkii sujuuddii markii la gaaray ayuu nabi sal slam sujuud dheer ayuu sujuuday shadaad ibn alhaad ayaa madaxa kor u qaaday saxaabiga way la yaabeen nebiga ma waxbaa ku dhacay ma waxbaa ku habsaday ma musiibaa dhacday sujuud aan lagu aqoonin dherarkeeda ayuu sujuudsanaa markuu shadaad uu madaxa kor u qaadayba mase ilmihii yaraa xasan ama xuseen midkood buu ahaayoo dusha ka saara nabiga sal slama isagoo sujuudsan nebiga salaadda markuu ka baxay ayuu wuxuu ku yidhi dadkiibaa waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah sal slama sujuud dheer baa sujuuday aanan kugu aqoonin ilaa aan malayno inuu wax kugu dhaceen ama in lagu waxyoonayo nebiga wuxuu ku yidhi sal slam waxaasoo dhan ma dhicin mana lii waxyoonaynin dhib iyo balaayana iguma dhicin laakina ina bni irtaxalanii wiilkaygii yaraabaa igu guuray gaadiid buu iga dhigtay oo dushuu iga fulay ilmaha yar waad aragteen dushuu waalidkiisa ama qofka qaraabadiisa ama ehelkiisa oo dushuu ka koraya maanto dhan marka waxaan necbaysay buu yidhi ilmihii yaraa inaan dedejiyo oo hamuuntii uu qabay iyo danayntii uu danaynaya cayaartaasi inaan ka dedejiyo marka waxaan jeclaysay inuu guto xaajadiisa ilaa isaga uu ka bogto inaan u kaadiyo وهكذا ولا ليال هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم إننا محض أمانيسا عيالك مساجدة كإلالية كداية عيرية ورفع ليسو بالغوها نبينا عليه الصلاة والسلام انتي دوشا ككورين تصور qof anaga inaga mid hadduu ilmo yar isu tukanaya dusha ka karo waxaa laga yaabaa inuu halgaad ku dhufto ama iska tuuro maya u kaadi sida nabiga calayhi salaatu wasalaam raxmadaasi ilmaha yar dushaada ha fuulo ha ku cayaaro waa maxay ha bogto baahidiisa وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه waxaa dhici jirtay inuu tukado isagoo halka garabka ama luqunta ay ka saaran yihiin inuu mararka qaarkood dhigo mar soo qaado kam xaraka ayaa nabiga uu sameyn jiray sallallahu alayhi wasallam ilmo yar hadba la qaadayo la dhigayo laga yaabo in hadba dhinac loo bedesho oo culayskiisa iyo kullu hada wax muxtamal xarakaad badan ayaa meeshaasi laga filanaya haddana salaada waxba ma yeeli jirin maxaa yeelay ilmaha yari iyo salaada isma diidayso sida nabiga calayhi salaatu wasalaam buu sameyn jiray nabiga salaadii duhur buu tukan jiray awal waqtiguna ka tukan jiray labada ragcadood oo horeyna wuxuu ku akhrin jiray mid walba 30 aayadood wax ku dhadhow 30 aayadood ragcadda horena wuu dheereen jiray midda labaadna xoogaha wuu yara gaabin jiray labada ragcadood oo dambana
kala bar labadii ragcadood hore qadar la eg ayuu ku tukan jiray salaada mararka qaarkood inuu dheereeyaa dhici jirtay oo ilaa ay tilmaameen saxaabada midkood uu yiraahdo baqiic buu qofkeen aadi jiray markaasuu dantii uu lahaa buu soo gudan jiray kadibna wuu soo laaban jiray oo gurigiisa intuu ku soo laabto uu weyse qaato uuna masaajidka soo galo welibana nebi sallallahu alayhi wasallamna uu ragcaddii koowaad uu u taagan yahay qiradaas duhurkii uu siraysan jiray kor umuusan qaadi jirin waxayna ku garan jireen inuu wax akhrinayo garkiisa dhaqdhaqaaqa uu dhaqdhaqaaqay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu gar weynaa walihaada dhaqdhaqaaqaas iyo nuuxnuuxsiga uu nuuxnuuxsanayo garkaasi ayaa laga dareemi jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirtay aayad ama laba aayadood inay ka maqlaan oo aayad uu kor u qaado nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu salaada uu dhammeeyo saxaabadiisa ayuu ku soo jeesan jiray haddii arrin xaalad ay jirto ama mushkila ay soo biirtay ama wax baraarujin u baahan hadday jirtana dadku u khudbayn jiray khudbad yar iyo mawcido yar ayuu geli jiray maxaa yeelay waqti dadku ay aad isugu soo ururaan waa waqti qaylulashadii laga soo kacay waa waqti dadku ay firfircoon yihiin oo qof walba nashaad uu leeyahay saan tilmaamna qaylulashadii waxay dhici jirtay duhurka hortiisa u ahaan jirtay mawaaciddaas duhurka kadib uu bixin jiray waxaa ka mid ahaa mar ay yimaadeen wafdi ka socda reer Mudar oo gaajo iyo dhib iyo rafaad badan uu ka muuqanayay nabiga aad buu uga carooday xaaladda ay ku sugan yihiin dacdarrida iyo dhibka iyo gaajada ka muuqanaysa iyo wejiyadooda sida ay faaqa uga muuqato kadibna mimbarka ayuu fuulay dadka ayuuna u khudbeeyey ilaahay buu mahdiyey wuuna ammaanay kadibna wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku soo dejiyey يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء آيادي سورة النساء أول كيدا آياد أوجه الرئيسو وتقوى كشيء كينيسو وخطب كلو أخري آياد سو أخري وحكلو أخري آيادي سورة الحشر آياد سيدي توانات ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وحوين كو إلهي الرومييو ألك عبسدا نفنها إكتو ما ننت بريو قيامة وحي هرمر ستي وناجح ها إكتو آيات كاسو أخريي كدبنا وحويري قفكو دينار كيسا ها صدقيستو درهم كيسا ها صدقيستو مرة هدو هايستا هبحيو صاعي سبركة هاد راشين هدو هايستو أما تمر هدو هايستو ولو تمر جبكد أما بركد بالله كدغي ها صدقيستو دادك أيو صدقة آد أقو براروجي كون بوريي وهكذا نبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا خطبوين كيسي خطبدي ظهر كدب دعضي أو ابن اللتبية صحابي markuu u xil saaray inuu mas'uul uga noqdo sadaqada inuu soo ururiyo kadib sadaqadii buu soo ururiyay uu soo laabtay nabigu u yimid wuxuu yiri yaa rasuul sallallahu alayhi wasallam hada lakum intan adinka iska leh intan ana li soo hadiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa khudbay dadku u khudbay salaadii duhur kadib ilaahay buuna waa maxay waxiday amaanay aadna u mahdiyay wuxuu mudan yahay alle ayuuna ku mahdiyay ku amaanay kadib wuxuu yiri inta kadib dadow فإني أستعمل الرجل منكم على العمل أنيقو قف بان شقاليسين وشقاء الدرسانية وشقوينك ألا مسؤول إيقادك الشقاء كمدان أسي ديبا يا أولا شقاء أرض وصوقبو مركاسو إيمان إساقو أرانيا إنتان أدينك إسكاله إنتان أنا ليسو هديي فليستو قريقو هو يدي إيابيه مركز إنو أركو بل إن وحلوسو هديينيو أفلا جلس في بيتي أبيه وأمي حتى تأتيه هديته guriga hooyadii ama aabihii mu iska fadhiisto bal in wax dadka ay u soo hadiyayaan in kale bal ha arke taa macnaheedu waa maxay halkaas xadiiska waxay ka qaateen aymadu hadaaya al-ummal ghulul dadka shaqaalaha ay mas'uuliyiinta hadaayaadka loo soo hadiyay waa booliwa waa xaraan way maxaa yeelay qofka wuxuu wax kugu soo hadiyeynayo inuu mansabkaaga kugu soo dhawaado in bari ka maalin aad u waastayso inaad waxa weeye hawl u qabato inaad wax u fududayso أي رمهاسي أيا الله وصو قبضا ومن هنا نبي عليه الصلاة والسلام أرنكاسي آدبو وقعراضي وحون يري والذي نفس محمد بيده الله نفت النبي محمد قعنتي سأي كجرتان كل أرتي متكين حولهاني كمقات الشيء حق درنا كمقاته إلا ألا أيو لكل ميا ما ننت قيامه حق درداس إسوغو سيته وحو يري نبي صلى الله عليه وسلم وحنقرن دد أذنك إذن كم إذا oo waxa weeye oo ilaahay la kulmi oo sita neef waa maxay baciira waa neef geela waa rati oo qaylinaya ama neef lo ah oo isna qaylinaya ama ri ama ari waa maxay ciyaya oo qaylinaya kadib nabi sallallahu alayhi wasallam gacmaha ayuu kor u qaaday ilaa laga arkay kilkilihiisa cadaantooda
كدبنا وحيري اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت يعني قعنتو سأذكر وقاد إلى كل كنيسة الأركو إلهو وان سو مجارسين إلهو سو مجارسين إلهو سو مجارسين يعني إلهو مرخاتك النقول وهكذا ولا ليال نبي عليه الصلاة والسلام سيداسي عاديس أهنجرتي إنه وعدي كوبا ووعدي سحابة ديس وحي سو قدبون هذا وحي مشاكله وحي حلين أباهن وحي الرماها اجتماعي بلشدة إنه وامحي النبي عليه الصلاة والسلام إنه كقيب قات هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلاة مركو كجر إنه قدال صوفيريو لكن دتك مركي أي بضيان صعبتونكا أي صعبتو بيان أيو قدال سو إيغي سأو صوفيريو مسيح والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف كتاغن مركاسو بالله إنه دب أصو قرطو أصو بحو نبيغا أيا أو إشاري ماشي هذا جوج أنمكث مكانك هل كاغا تدك صلاة كبحي أبو بكر مركو سيدا أركي فرفع أبو بكر يديه إلى السماء قعمه سيدا كور أبو قاضي إلهي بونا مهديي بونا أماني محايا أمركا وأمري نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنو ددك صلاة كبحيو نبيغنا أكو قرب تكنيو قداشيسة وتأغيني وشرف ويوي مركو إلهي ومهديي أبو بكر وحو سميي دبو أسو قرتي إلى سفكي وددك لا سو سلمي markuu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar waxa uu sameeyay hore ayuu baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka isaga salaada si dhameystirayo ka